laakiin in idinku 24 saac aad is haysataan oo isjaftaan runtii hadduu lagu rooyahay wax fiican maahan. dad badan baana idinkaga lumaya, kastamar badan ayaa idinkaga lumaya, dad badan oo idinku soo biiri lahaa ayaa sidaa idinku daynaya, dad badan oo idinla joogay ayaa idinkaga tegaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال إدرهانتينبا ملولبا جوجتان دونيدا دعليدا حلي كستا إي ساعد كستا إدين تاي وان إدين سلامي سيدي باتين حالدا كورما والمفيعنتين الله يدي شرفيه. وحان إدين لياهي ويكنا عدو الكوري برنامج كلان إدين وضع برنامج كان أن إدين وضع أن حاتن كالي دونو أيا وحو نقون دونا ميد كدوغن برنامج جدو خوري وأن كهالي جري talow muxuu noqon doonaa ayaad isleedihiin. wuxuu noqon doonaa barnaamijkan aan ka hadli doono saacadan aad daawanaysin youtuberada aan ka hadlay waa youtubero kale maahane qayb ayaan uga hadli doonaa. haatan haddii lakuro waxaan ka hadlayaa talow youtuberada haddii laku rooyahay Nairobi, maadaama anigu aan ahay youtuberada Nairobi haddii lakuro qayb ka mid ah ama qof ka mid ah maadaama aan ahay youtuberada Nairobi iyo youtuberada xamar. dhalinyarada xamar ee hadii lagu youtuberada iyo dhalinyarada Nairobi youtuberada farqiga u dhaxeeya baan ka hadli doonaa, barnaamijkan diiradda ku saari doonaa. haddii aan ku hormaro dhalinyarada hadii lagu xamarka hadii lagu youtuberada leh, marka hadii lagu yahay magaalo madaxdiina jooga. haddii aan ku hormaro runtii dhalinyarada waa dhalinyaro markaasi u fiirisin aada u firfircoon, laakiin firfircoonaantooda maxaa haddii lagu roon yahay ka daray waxaa ka daray oo haddii lagu roon yahay oo maaragtay firfircoonaantoodii ku cayaaraya runta in la qariyo maahane waxyaalaha inta badan ay soo gudbinayaan ayaa haddii lagu qaribaysaa. ha u badnaatee isjafowgooda iyo ayagoo iscaayaya haddii lagu reeyo hebel baa sidaana, hebel baa sidaana, hebel baa sidaana, hebel baa sidaana, iyo ayagoo sidaa iskugu dhigan gebigoodaba mid arki kara aysu jirin. arrinkaas ayaan rabaa inaan kala hadlo haddii lagu reeyo dhalinyarada haddii lagu youtuberada xamar. anigoo haddii lagu roon yahay aan maaragtay aan ku talax tagayn baan rabaa si yar inaan haddii lagu rooyahay halkan uga wacyigeliyo, aan haddii lagu barnaamijkaana diiradda ku saaro. dhalinyaradan runtii inta ay iyagu is haystaan oo isjafayaan oo iscaayayaan oo ceebahooda banaanka soo dhigayaan, waxaa ka wanaagsanaan lahaa iyagoo bulshada waxyaalo kale usoo gudbaya. waayo waxaa idinku xiran saaxiibayaal bulsho badan oo dunida dacaladeeda kala jooga oo idin daawanaya. marka bulshadii aad haddii lagu idinku xirnayd haddii aad usoo gudbisaan idinkayo midba mar lagu dhagan yahay, midba mar haddii lagu la caayayo aad usoo gudbisaan, runtii bulsho badan ayaa idinka harasa idinka lumisa. waxaad usoo gudbin kartaan dadka idinku xiran waxyaalo haddii lagu roon yahay wacyigelina, waxyaalo haddii lagu madadaala, waxyaalo qosola aad markaa ku maaweelin kadhaan. laakiin idinka haddaad 24 saac mar isjafaysaan, marna saacadna aad isjafaysaan saacayaysaan, saacadna wada joogtaan oo markaas aad kala daydaan masna aad isjafasaan baangadiina qaadanaysaan. saaxiibayaal arrinkaa markaan arkay runtii wuu cuntumi waayey. marka waxaan rabaa haddii lagu roon yahay anigoo haddii lagu roon yahay qof ugu dhigayn, qofna haddii lagu farta ku mudayn, wadar ahaan dhalinyarada haddii lagu youtuberada inaan la hadlo oo aan u sheego magaranaysaa marka haddii lagu roon waxyaalaha ay magaranaysaa bulshadooda waxtarka u ah iyo waxyaalahan waxtarka u ahayn. waxyaalaha waxtarka u ah aad usoo gudbin kartaan bulshadiina waxaa ka mid ah inaad waxyaalo ku wacyigelisaan ay ka mid yihiin ruwaayadahaas oo ah marxaladaha taagan iyo kuwa jira. sidoo kale barnaamijyo kala duwan inaa iyagana aad soo gudbisaan, iyagana haddii lagu waad samayn kartaan. laakiin in idinku 24 saac aad is haysataan oo isjaftaan runtii haddii lagu rooyahay wax fiican maahan. dad badan baana idinkaga lumaya, kastamar badan ayaa idinkaga lumaya, dad badan oo idinku soo biiri lahaa ayaa sidaa idinku daynaya, dad badan oo idinla joogay ayaa idinkaga tegaya. waayo dadka 24 saac marna haddii lagu rooyahay wax xun haddii usoo gudbisay, marna wax fiican usoo gudbisay, oo inta badan waxaa xun ay bataan, haddana idinka isjafkiina u bato, dee dadku idin nacayaa wuu idinka tegayaa. marka waxaan rabaa wax yar inaan idin tuso halkan haddii lagu rooyahay Nairobi youtuberada haddii lagu rooyahay Nairobi iyagu waa sidee. dhalinyarada reer Nairobi gabdho iyo wiilalba
waa dad isjecel iyaga, maahan dad isxastaa, maahan dad kala cararaya, maahan dad iscaayaya oo isjafaya oo mid arki kara aysan jirin, laakiin waa dad isku qalbi furan, mid markuu midka kale u baahdo isku tegaya, wuxuu midka kale uga baahdo isgarab qabanaya, isgarab taagan mar walba. maahan haddii la kuuraya dhalinyaro iscaayaya, mar walba isku dhegan, ceebahooda banaanka soo dhigaya. bulshadooda ayay maaweelinayaan, markaas ku maaweeliyeen wacyiga jira, iyagoo ka maaragtay waxyaala ka sameynaya, haddii ay barnaamijyo noqdaan iyo haddii ay riwaayado noqdaanba. marka haddii la kuuraya waxaan rabaa dhalinyarada, haddii la kuuraya youtuberada halka haddii la kuuraya Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho, waxaan rabaa saaxiibayaal inaad fiirisaan dhalinyarada kale ee adduunka dacladiisa kala jooga ee youtuberada meel walba ha joogaan, sida ay u dhaqmayaan iyo sida haddii la kuuran yahay markaas ay bulshadooda wax ugu soo gudbinayaan. bal eega iyo idinku sida markaas haddii la kuuraya aad u dhaqmaysaan. runtii haddii la kuuraya tusaale yar haddaan idiin soo qaato, maantay wax haddii la kuuraya anigu aan qaban karo ayaan kan kala haddii la kuuraya uusan qabsan karin, anigu wax aanan qabsan karin ayuu ku kala qaban karaa. haddaba sidaa daraadeed waxaa la yidhahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. haddaad hal meel kasoo wada jeesataan oo hal meel haddii la kuuraya ma garanaysaa si wada jira wax ugu qabsataan, bulshadiinana si wada jira wax ugu soo gudbisaan, runtii waxay noqon lahayd faa'iido weyn ayay noqon lahayd, wax badan ayaana soo gudbin lahaydeen. marka haddii la kuuraya waxaan idin leeyahay saaxiibayaal, dhalinyarada haddii la kuuraya yahay halkaa jooga, war noocan wax ka bedela, isjafkan weliba haddiina bedelayn inaad isku timaadaan oo wax isla sameysaan oo isla faraxdaan oo bulshadiina haddii la kuuran yahay idinku xiran aad wax qurux badan usoo wada gudbisaan, idinkoo isku meel haddii la kuuraya markaas iska rabsanaya, idinku qofba qof kale wuxuu uga baahdo markaa caawinaya. haddiina taa awoodi karin, war idinka hascaayinina, ha isjafinina, maxaad haddii la kuuraya ceebihiina banaanka u keenaysaa. waxaa yidhaha hal ceeb oo aad qarisin ilaahay 12 ceebood ayuu ku qariya. marka runtii waxaan idin leeyahay saaxiibayaal, war sidaan wax ka bedela, sidaan xal maane. ma garanaysaan noqda haddii la kuuran yahay dad ma garanaysaa markaas mas-uuliyad saaran tahay. runtii markaad leedahay channel bulsho badan ku xiran tahay, dee maxaa mas-uuliyadii weyn baa ku saaran. marka waxa aad soo gudbinaysin ma wax bulshada waxtar u ahbaa, ma waxaan waxtar u ahaynbaa, waa wax sideeya, waxaasoo dhan inaad la socotiin ayaa la rabaa oo marka hore ka fiirsatiin. laakiin iska gudbi sidee lacag u sameeyaa, sidee haddii la kuuran yahay meeshaan lacag uga soo qaata hadday noqoto, dee walaala sharaftaadii baad ku ciyaaraysaa, sharaftiinii baad ku ciyaaraysaan. dad badan ayaa haddii la kuuraya idin nacaya, marka sidii aan dadku idiin nacin, sharaftiinana iisa ku lumin ayaan idin sheegaya. xumaan ha iga qaadinina, runtii ha dhibsanina clipkan aan idiin duubaya idinka, macnihii waan idinku wacyigelinayaa. walaalka haddii la kuuran yahay ma garanaysa oo aad u sheegtiin wax waad tustiin meesha khaldan aad ka leexisin, dee macnihi waa heel weyn, waad u heelis. idima caayin, idima jaayfeen, waxuna idima geysan, laakiin keli walaalayaal sharaftiina si u soo kacdo, bulsho badanna aad u heshaan, iska daaya haddii la kuuraya waxyaalahan idinka aad dib iskugu noqonaysaan mar walba. iska daaya tan kale oo ah xaasidnimada, aad isxaasdisaan, qofkan isu soo kacin, kan isu sidaa noqon, ha isxaasdinina. runtii markii aad noqoteen qof aan xaasid ahayn, haddii la kuuran yahay aan dadka u kala eexan, qof walba horumarka la jecel, ilaahay ayaa ku garab taagan, wax kaa xumaanayana male. horumar allaala iyo waxa aad jeceshaa niyadaadana waa gaaraysaa. marka idinkoon dacwada allaan ka tegin iyo haddii la kuuraya ma garanaysaa xarigga ilaahayna tala saaranaya, shaqaysanayana, dadkiina wax fiican usoo gudbinaya. wakaa talada aan idin siinayo waa midaas, waanadaan idiin soo gudbinayo waa midaas, oo aan jeclaystay inaan idinla wadaago. marka haddii la kuuran yahay kibir iyo isla weyni iyadana joojiya. haddii runtii aad kibirtin, ma kibri karin, bilo aadan baa tahay, addoon baa tahay, ma kibri karin, ma garanaysaa, maba kibri karin, waxa ku kibri dhiba ma haysatin. tan kale isla weynida iyadana waa waxyaalaha aan ka wacyigelinayo dadka ma garanaysaa social media iyagana caan ka noqday, markay runtii bulsho badan bartaan, bulshadooda wejigay u bedeshaan, haddii la kuuran yahay ma garanaysaa in ay intooda badan yasaan ayay ku keenaan marka ay noqdaan qof fahmoosa. marka hay cidna haddii la kuuraya iskala weynaan, cidna ha yasin,
dadkan kusoo xiriirinaya rabaa inay kula hadlaan waa dadku jecel iyagana soo dhaweey xilliga aad jaanis leedahay markaas aada wax sameynayn hawl aada gacanta ku hayn waqti si qalbi furan qalbi wanaagsan usoo dhawee la farax la qaado kaftanka waxaa suurtooda talo inay ku wadaan iyo tusaalayaal ma garanaysaa markaas iyo wax kaa khaldan ay kaa tusin karaan because waxa kaa khaldan inta badan adiga ma ogaan kartin waxaa ogaan kara bulshada ku daawanaysa kugu xiran ayaa ogaan kara aad iyo aad runtii aadaan uga mahad celinayaa bulshada aniga igu xiran halkan channelkayga abwaan geesi ku xiran aadaan idinkaga mahad celinayaa macnihii talo iyo tusaale intaba inta sida aad iisisaan iyo dhiirigelintiinaba hadday tahay kuwa gmailka igula wadaagaysaan iyo kuwa koolka caadiga wicitaankiina igula wadaagaysaan iyo kuwa commentiga igula wadaagaysaanba waan idinkaga mahad celinayaa barnaamijkayga caawa aan ka hadlayana wacyigelintaas iyo haddii laku horeeyaa waanadaas aan dhalinyarada walaalahaya youtuberada aan u dirayay ahayd waayo haddii laku horeeya ma garanaysa iyadoo bulsho badan kugu xiran tahay maahan inaad sidii caruurnimada u dhaqantiin sidaa rabtin u dhaqantiin waxaa rabti soo gudbisin waxaa aragtin doobtin maahan waxaa jira wax dadka faa'iido u leh iyo waxaan faa'iido u lahayn wixii faa'iido u leh bulshada usoo gudbi oo u duub wixii aan faa'iido u lahaynna ha u duubin waanadayda intaas ayaan kusoo koobayaa aada u mahadsantihiin intaan barnaamijkan iyo mid lamid aan ku kulmano waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo ammaana allah